saraakiisha ururka kontoniyo koowaad guutada sagaalaad gobolka Bakool iyo maamulka degmada Tiyaglow oo muddo 6 sano ku sugan magaalada Xudur ayaa bilaabay in howlgallo ay ku sahansanayaan deegaano ku yaala wadada xiriirisa labada degmo Xudur iyo Tiyaglow ka sameeyay taas oo rajagelisay shacabka degmada Tiyaglow oo muddo 6 sano barakac ku ah magaalada Xudur iyo magaalooyinka kale ee dalka tuulooyinka ay sheegeen maamulka iyo saraakiisha inay gaareen waxa maalmihii la soo dhaafay dadka shacabka ka hortaagnaa inay u soo gudbaan magaalada Xudur maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab hase yeeshee isku horimaad kala kulmin goobaha ay gaareen taliyaha ururka kontoniyo koowaad guutada sagaalaad qaybta 6aad gobolka Bakool laba xiddigle deero macalin cabdi ayaa hadal dhiirigelin waa ciidamada xooga dalka niyad jabna ku ah khawaarijta cabsina ku abuuraya ujeediyay ciidamada xooga dalka xilli ay howlgal amniga ku xaqiijinayaan ka wadeen deegaano hoostaga degmada Xudur ururka kontoniyo koowaad maysiinka dhiirigeliyay lan kasto al-shabaab hadile oo al-shabaab hadile geeka anna maamula siinay soona ano tayurku maysiinku ballan qaaday lankii qorshay al-shabaabka qorkiishay adi isku leh ma kale abaalmarin siiyay lankii al-shabaab madasha hawada inshaan ano tayurku kontoniyo koowaad $500 beese lankii magal fayl shaqaysada koro maylin baahanya إن $500 بسده لو دلده يلين باهي $500 وي لكن هب قرقن أذين لا لكن ماشية إنسان $500 إلهي هب بره أننا ماشيين كبرنا قاعدي إننا نسيون كهرانا سين الأرض ميركسو جلاسين الجلاو ما كان هذا الإسكندية قدوميها إن شانكارو كدورنا إسكندية أو كندور قاعدة قدوميها دقمة تيجلو محمد حسن عبد الله فود عده يقدوميها عرمها نبتكلية دقمة تيجلو oo la socday ciidanka xooga dalka ee xaqiijinayay amniga deegaanada ay gaareen ku weheliyay ayaa sheegay in qorshahooda ugu weyn uu yahay inay xoreeyaan degmada Tiyaglow oo in muddo maleeshiyada al-shabaab ay gacanta ku hayaan runtii may nagadaane waana nagada jarnay oo waana rajo boqolkiiba boqol oo kalena oo Tiyaglow galanta ka dhagnay ereydii ee xorooyin runtii ereydii la mataagnaadana oo awoodan hormadan tijaabini أنت ونتيجة هاي سنة من دريو 30 كيلومتر بقول إلا 20 سجل إيو $2 30 إيو إلى بقصر ديري جرنا رنتي ما دام ضد ولاهان جرب كان ميل كمد الشباب بقولها يا ونون هدا وقتني وقتهم هدا ونون كفاية سنة وقت كان كقارس هنا مرة ومله gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka Bakool Yaxya Macalin ayaa maamulka shacabka iyo ciidamada ku amaanay siday uga go'an tahay in ay iska dulqaadaan cadawga waxaana fariin u diray dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedka Koonfur Galbeed in si gaar ah ay ula socdaan abaabulka Bakool ka socda maadaama la rabo in deegaanada looga xoreeyo argagixisada al-shabaab insha Allah may ba rajeeyaan in howlgalku socdo doono oo la sii wada doono وما إلى رأي لا دقمة تجيلو لو كديرو دقانكي دقمة تجيلو هاي دقمة قلنتو كمقنايت لو كحوريا وني هو القلقون صعدة لن روجنا معلم بتلعبوا ولا قاعدة يا ما إلى رأي قرشان إن شاء الله إلى هنا نيجول أيضا نمكن بديت كأنا ما إلى رأي نمن فلياله ما يبقى كديد أنا رمتي قبل هذا كلا سوماليا سدا مقابل كهيران قبل هذا ما إلى رأي قبل هذا الحيلاق الجديد ميلوسيا كديد أنا محمد حسن عبد الرحمن